halkani waa warsan podcast. barnaamijyada warsan podcast waxaynu ku soo qaadan doonaa hadba mawduuca markaasi taagan oo isleenahay dhageystayaashiinu waa ay xiiseynayaan arrimaha bulshada, fanka iyo suugaanta, dhacdooyinka caalamka iyo wararkii waaweynaa ayaad ku maqli doontaan. halkani waa warsan podcast. waa tahay dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ugu magac darnay warsan podcast. barnaamijka warsan waa barnaamij aan u ka hadalno arrimaha bulshada, dhacdooyinka caalamka, wararka ugu waaweyn iyo waxyaabaha markaas waanu isleenahay waxay xiisanayaan dhegeystayaashiina sida gaarka ah ahmiyadda iyaga ugu leh. haddaba toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi qaas ah waanu la yeelanay mid ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankana Sweden. magaciisuna waa Aweys Cismaan Axmed. Aweys ayaa waxa uu qoray dhowr buug oo midkood loogu magac daray Sunita, ka uu ka hadlaya qiso jacayl uu dhex martay wiil Soomaali ah oo waqtigaas Hindi wax ku baranayay iyo gabar Hindiya. Aweys ayaa hadda markaasi waxaan weydiinay bal waxaase ku kalifay in uu qora uu noqdo. qoritaankaygana jacaylka qoritaankayga wuxuu ku yimid kadib markii aan akhriyay buugaag badan oo ii saameeyey oo aniga i bedelay oo aan arkay inaan ku raaxaysanayo haddana nolosheeda horumar igaasiiyey. marka waxaan ku fikiray in qoritaanka inuu yahay awood fiican oo dadku ayagoo ku raaxaysanaya akhriska haddana maskaxdoodii wax iska bedeli karaan. labada dhinacba bini'aadamku waa bedelaa. mid xataa sheekada qofka uu raacayo ku raaxaysanayo, haddana laakiin waxyaabaha ku jiro characteriska ama dadka oo sheekada matalaya sida ay yihiin iyo ficnaantay qabaan qofka inuu ka faa'iideysan karo, khaldaadkay galaan inuu ka faa'iideysan karo. marka buug akhriska waa awood aad u fiican. taasaa igu dhalisay inaan maaragtay qoritaanka inaan bilaabo. waxaanu rabi lahayn bal in aad si guud inooga waranto buugagtii aad qortay, imise bay ka koobnaayeen, maxay ka hadlayeen, bay-aday dadka ay ka turjumayeen maxay ahayd? marka hore markii aan jaamacadda ka dhigan jiray dalka Indiya ayaa waxaa igu dhalatay in aan qoro ama markaan arkay nolosha Indiya, culture-ka meesha ka jira ama dhaqanka ka jira iyo sida dadka ajnabiga ah meesha jooga looga haysto iyo waxyaabo yar yaroo is-afgaranwaa ah oo dhinaca dhaqanka ah oo meeshaan kala kulmay ayaa waxaa meesha iga soo baxay aan ku alifay sheeko jacayl ah haddana ka tarjumaysa kala duwanaanshaha dhaqanka iyo sida dadku ay maaragtay isku takooraan oo aysan isjecleen ama aysan maaragtay qiyaasi karin inay isguursan karaan ama isgayaan. marka taa waxaa igu soo dhalatay sheekadii ayaan meesha ku bilaabay. sheekada waxay ku saabsan tahay wiil Soomaali ah iyo gabar Hindiyad ah oo aad u kala duwan haddana jacaylka isku keenaya. marka buuggii ma dhammaynin, safaraan soo galay wadamo meel badanaan imid. marka buuggii markii aan soo galay Sweden ayaa waxaan u helay fursad. waddankan saa la socoto internetkana waa sahalsan yahay, shirkadaha buugaagta daabacana waxa waaye sida loola xiriiro way sahalsan tahay. marka waxaan ku qoraa badanaa aniga afka Englishka oo wax ku soo bartay, af Ingiriis ku qornaa. kadibna waxaan bilaabay inaan raadiyo shirkad ama madbacad oo buuggii soo saarta kadibna suuq gelisa. sidaasoo ku soo baxay. haddana markii aan muddo joogay waxaan ka mid noqday qorayaal badan oo Soomaali oo ka sheekeynaya integrafoonka problemkiisa ama isdhexgalka problemka ka haysta Soomaalida iyo dadka ajnabiga oo la dhaho Somalia Reisvaria. marka qaybta aan ku lahaa wuxuu ahaa maadaama aniga macalinimo aan ku shaqeeyo oo aan haddana integrafoonka ka soo shaqeeyey, qaybteeda waxay ahayd dhibaatada qofka qaxootiga Soomaaliga ah ee af gooni ah, dhaqan gooni ah iyo diin gooni ah marka isagoo haysta markuu yimaado waddankan dhibaatooyinka uu kala kulmi karo iyo sida looga baxsan karo. kaas wuxuu ahaa buug aan wada qornay anagoo 5 qof ah oo wada qoraa ah. wuxuuna ahaa buug la isku keenay afkaarta qorayaal badan si maaragtay loo ogaado dhibaatada Soomaalida ka haysata dalkan Sweden iyo sida ugu fiican ee looga bixi karo. marka buuggii wuxuu noqday runtii buug oo ay isticmaalaan iskuulaad iyo kumuunada ama degmooyinka oo dhan. halkan aan kusoo bandhignay. marka wasiirkii isdhexgalka ayaa goobjoog ka ahaa xafladii. kadibna markaan shaqadii waddankan aan bilaabay oo aan arkay hab fikirka anigoo hore uga soo shaqeeyay wadamada Carabta iyo Soomaaliya iyo meelo badan aan arkay dhaqanadooda
waxaan arkay dad cusub runtii oo fiican haddana sida loo fahmo ama loo dhexgalo ay adag tahay markii laga hadlayo goobta shaqada. sidaas ayaa waxaan ku fikiray inaan qoro dhibaatooyinka ama cunsurinimada takoorida oo aan loo jeedin oo aan la arki karin oo dadka ajnabiga ay arki karin markii habka loogala hadlayo. buuggii marka waxaan u bixinay svenska fika en personlig berättelse om svenska arbetsmarknaden. suuqa shaqada sida maaragtay loo dhexgeli karo iyo dhibaatooyinka ka hor imaan kara qofka ajnabiga ah markuu waddankan ka shaqeynayo. marka buuggaasna wuxuu ahaa ma ahayn buug sheeko oo romaan ama alifa ma ahayn, waxay ahayd sheeko ka hadlaysa waxyaabaha waaqiciga ka dhaca waddankan iyo siyaabaha xal loogu heli karo. markaynu ka hadlayno buuggeed ugu magac dartay svenska fika oo noqon karta casriyadii swedishka ilaan waa la casriyeystaa waqti kasta bay casriyeystaan. buuggan waaqiciga iyo waxyaabaha ku jira ee adigu aad aragtay maxaad inooga koobi kartaa oo aad ku qortay dadkii aad la kulantay waxyaabihii ay ka sheekeeyeen dhibaatooyinka suuqa shaqada soomaalida ku haysta iyo caqabadaha waddankan yaala, bal si kooban ma nooga warrami kartaa? buuggan waxa waaye wuxuu soo koobayaa qofka markuu rabo in uu shaqada codsado interviewga ama maaragtay imtixaanka ugu horeeya markii qofka uu la yeelanayo. had sidaa la socoto waxa waaye dhaqanada waa lagu kala duwan yahay. aniga imtixaan shaqo waxaa iga qaaday dad carab ah, dad hindi ah, dad soomaaliya iyo dad swedish ah. intaba markaan isku barbar dhigo waa lagu kala duwan yahay. dadkan carabta waxaa laga yaabaa su-aasha markay ku weydiinayaan iyo indhahooda inaad ka fahmi karto haddii ay ku riyaaqeen su-aashaada jawaabtaada inay sax tahay iyo in kale, in lagu jeclaystay meesha maaragtay hawshaada ay noqoto iyo in kale. laakiin waxaan soo galnay waddan run ahaantii dadka oo dhan la wada qoslaayo oo aan lagu fahmi karin qofka inuu wax xun sameeyey inuu wax fiican sameeyey. adiga waa taqaanaa, waad kasoo shaqaysay waddankan, qof waliba waxa waaye yani waa hadal fiican ayaa loo sheegaya, laakiin markuu baxo ayaa laga yaabaa in xumaatadiisa laga hadlo. marka waxyaabahaas aan kusoo bandhigay svenska fika. svenska fikana waxa waaye fikaha kama hadlaya fikaha dibadda. markii shaqada lagu jiro shaqo walba waxay leedahay waqti oo la fiikeeyo. marka anigana meelaha aan kasoo shaqeeyey dhinaca waxbarashada subaxdii markii fika la isugu yimaado waxay noqotay meesha dhammaan ay ku kulmaan shaqaalaha, qof waliba uu kusoo bandhigo waxyaabaha uu maaragtay uu awoodiisa ay tahay si qarsoon asigoo aan faanin ama aan dhihin waxaasaan aqaanaa. meesha habka dadka lagu kala barto iyo siya marka qofka markuu cusub yahay oo waddanka ku cusub yahay uu ka yimid wadamada carabta oo la isdhexgalo oo si daacadnimo loo hadlo oo aan diblomaasi jirin, ama soomaaliya uu ka yimid markuu soo dhexgalo dadkan waxaa laga yaabaa inuu qaldaad badan galo ama inuu siduu u malaynayo inaysan noqonin. maxaa yeele annaga waxaan nahay dad daacad ah oo markii qofka wax yar uu qalad galo isla markii loo sheegayo. markii qofka matalanba wixiisa aan la jeclaysanin waxaa laga yaabaa marka soomaaliya joogto ama wadamada carabta shir la wada fadhiya xataa haddaad ku hadasho wax qalad ah 3 qof inay ku dhahaan waxaas nagala tag ama waxaas waa been. laakiin meeshan waxaa laga yaabaa haddii aad maanta oo dhan qalad ku hadlaysid in dadkii ay ku qoslaan oo aysan ku niyad jabanin ama si kale inay ay wax kugu sheegaan. taas ayaa ugu wacan dhaqankan. waxaa tusaale on ku siin karaa dadkii waaweynaa ee soomaalida markii ay bilaabeen waxbarashada dalkan waxay kala fahmi waayeen markii ay waxbarashada ku fiican yihiin iyo markii ay ku xun yihiin. maxaa yeele mar walba vabro du'ar dugtiga aan wada leeyahay, caruurtii sidaas oo kale, dhalinyaradii sidaa. marka anagana waxaan ka nimid meel markii qalad aan sameyno waana la garaaci jiray, markii waalidka waana canaanin jiray, mujtamac oo dhan fartan lagu fiiqi jiray. waxaan nimid meel dadkoo dhan la wada qoslaay ha lagu leeyahay oo yacni aadan kala fahmi karin kan ku jecel iyo kan kaa soo horjeeda. arrintaas ayaan xoog saaray sidaan u iftiimiyo dhibaatooyinka maaragtay kasoo unkamay dhaqan ahaan oo aan xumaan ka ahayn, laakiin dadkan dhaqankooda iyo dhiigooda uu kusoo barbaaray inay ayagoo aamusan ay wax bedelaan. yacni waxaa jira hab wax laisugu sheego oo anaga aan ka dhacsanahay. marka waxyaabihii ayaa buug aan kusoo bandhigay iyo habka ugu fiican oo qofka markuu interview galo su-aalaha uga jawaabi karo iyo talooyin aan meesha aan ku siiyo. aad iyo aad. marka runtii waxaad ka hadashay arrin taagan oo dadku inay ku baraarugaan ay muhiim ay tahay.